Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaam asxaabta meel walba aad joogtaan. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay su'aal ka timid mid ka mid ah asxaabta ku xiran channelkan Zimikis Perfect. Su'aashan waxay tahay sidatan. Run ahaantii markaad fiiriso su'aashan waxay tahay in mar walba hadduu doonayo inuu soo kiciyo software-ka Adobe Photoshop iyo software-da Adobe in uu la kulmayo ciladaasna waxay tahay mar walba computer-ka wuxuu ka naqanayaa culeys zaid ayuu ka naqanayaa. Marka xalkeeda muxuu yahay? Run ahaantii Adobe Photoshop 2020 asaga ayaa wuxuu doonayaa in RAM-ka ku jiro computer-ka uu yahay 4GB ama wax ka badanba. Mar walba software-da la update gareeyo waxa sii weynaanayo size-ka uu ka qaadanayo hadiskaha iyo isticmaalida RAM-ka ayaa sii weynaanayso. Haddaan u soo laabano xalkan wuxuu yahay in aad xoogaa yar RAM-ka intuu ka isticmaalayo Photoshop-ka inaad xoogaa yar aad ugu darto. Marka aan ku tusiyo sida aad ugu dari lahayd. Marka daawasho wanaagsan. Marka ugu soo horeyso waxaad soo furanaysaa Photoshop-ka ayaad soo furanaysaa. Markaad soo furto kadib waxaad leedahay edit, kadib waxaad ka xulanaysaa preference, kadib waxaad leedahay performance. Kadib markuu shaashadan kale uu ku keeno kaliya meeshan sida u jeedo let use meeshan sida u jeedo aniga RAM-ka hadda igu jiro waa 8GB. marka 8GB marka wuxuu ka isticmaalayaa 60% ayuu isticmaalayaa. marka waxaan sameynaynaa haddii uu RAM-ka ugu filan hadduu 4GB uu kugu jiro xoogaa yar meeshan 65 ama 70 oo kale ayaad ka dhigaysaa. marka 70 oo kale aad ka dhigto kadib meeshan ay ku qoran tahay use graphic process meeshan ay ku qoran tahay waa inaad ficta aad ka qaadaa haddii uu computer-kaaga ciladaasi uu leeyahay. waayo aniga hadda ciladaas ma ii lahan oo mar walba haddaan soo kiciyo Photoshop-ka si xawaare leh ayuu igu soo kacaa. meeshan history-gana haddaad xoogaa yar dhimi karto ilaa iyo 10 oo kale waad geyn kartaa. waan inaad iska hubisaa meeshan use graphic process inaad jeega aad ka qaado. markaasi kadib sidaad u jeedo computer-kaaga hadduu leeyahay GPU graphic process unit hadduu leeyahay xoogaar speedkiisana wuu sii yara weynaanayaa. marka aniga hadda computer-ka aan isticmaalayo waa Core i3 marka ma lahan wax graphic process unit ma lahan. haddii aad rabto inaad ogaato computer-ka inuu graphic process unit inuu leeyahay haddaad rabto inaad ogaato marka hore waxaad tagaysaa taskbar-ka kadib right click ayaad taskbar-ka leedahay kadib waxaad ka xulanaysaa task manager ayaad ka xulanaysaa. markaad task manager aad ka xulato kadib waxaad leedahay performance. sidaad u jeedo performance-gan markaad ku dhufato kadib sidaad u jeedo meeshan haddii GPU uu leeyahay computer-kaaga meeshan ayuu kuugu soo qorayaa GPU. CPU-gana waa ku jira meeshaasi. hadda sidaad u jeedo computer-kan ma lahan wax GPU ma lahan graphic process unit ma lahan. marka sidaas inay tahay speedkiisa waa iska yara fiican yahay. marka aan iska soo yara kansalno marka sidaas sahlan ayaad u samayn kartaa. marka ugu horeyso waa inaad iska fiirisaad meeshan inaad 70 MB aad ka dhigto meeshan inaad ka dhigto ficta meeshan inaad ka qaado xoogaar history stageskana waa inaad xoogaar aad yareysaa content-ka aad ka yareysaa. kadib adiga markaad intaan aad sameyso kadib waxaad leedahay okay kaliya ayaad leedahay. aniga markaad ciladan ima haysato fadlan haddii ciladan ay ka baxdo videogan la garay lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iideystaan. intaanan ka bixin muuqaalkan waan ogahay su'aalo dhowr ayaad iga soo weydiisaan dhanka commentiga. marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa videoyada soo socda qof walba su'aasha uu qabo inaan kaga jawaabi doono. marka waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.